داوديال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. داوديال وبرنامجكي gaar haye ee maalinlaha ahaa waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdulwaaxid Cabdullaahi Khaliif oo lana jooga. waxa isku soo dabriday farsamadana farsameeyay Muxyidiin Diiriye Nuur wadani oo Canada jooga. barnaamijku waa diinta iyo dawladnimada. mawduucuna waa khudbo uu noo akhrinayo Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyow oo ahaa sarkaal ka tirsanaan jiray ciidamadii qalabka siday shahaado sare PhD ku soo qaatay Canada dibadda una soo tartamay madaxweynenimo. waa aqoonyahan wadankii ku noqday wuxuuna xoogga saaray arrimaha waxbarashada iyo jaamacadaha waxayna soo saareen arday aad u tiro badan. jaamacadahaas hadda laga aflaxay ee Muqdisho ayuu ka ahaa madaxda. mudane Cabdiraxmaan soo dhow. ما سنت وأدوها عبد الواحد. السلام يا أمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. داوديال وقار هي وقوله جعل كسوماليات جيس كستا ويأدون كجوان وجود بويهين دولة قلنا كما قاعدنا معارضنا قرب سار لملهن عد قورينا كمحرن فكر كوالو كلا دوانان كرا لكن دنت قود وامد قوري أيام قبل هذا الكو وأنا كو كرونه gaar hayo u geeyay ilaali. waxaan fursad siinaynaa dictorka oo noo khudbaynaya noo muxaadareynaya ilaa waqti nus saac 35 daqiiqo kadib telefoonka meesha idinku qoran yahay qofkii raba su'aal anaguna waa weydiinaynaa marka falyatafadal tore. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان آتي ومهدفلنا يقرنتي gaar haye iyo Cabdulwaaxid iyo ragga kale toodoo ka soo wacay oo hadda magacooda aan wada xasuusanin oo muddo ka shaqeynaya runta inaan maanta fursadan isku helno oo aan qaybsano afkaarta iyo muxuu ahaay aragtida ku wajahan dalkayna aan qaybsano fursad ii tahay dhammaan inta dhageysanaysa inta daawanaysa intaba waa salaamaya salaanta islaamka ee ku salaamaya salaanta bacdi. waxay la tahay Soomaaliya hadda muddo dheer ayaa warkeeda la hayay. dadka Soomaaliyeed waxaad moodaa dawladnimadiina inay dhibaato weyn ka haysato islaamkiina dhibaato weyn ka haysto muxuu ahaa qabiilkiina dhibaato weyn oo ka haysto. marka mawduucan marka aan maanta aan idin soo xuray oo isleeyahay oo bilowga ah ma aha mawduucan si tafaftiran uga hadli doono. caalamka tafaftiran wuxuu u baahan yahay cilmi badan u baahan yahay iyo waqti dheer in looga hadlo u baahan yahay. laakiin mawduucan aan ka hadlayo waxaan ka hadlayo darsaaya aniga muddo 3 sano ka badan markaan ardayga ka ahaa jaamacadda Magill University 1900 iyo muxuu ahaa 80 iyo 8 laga bilaabo ilaa hadda ayaan ku dhex jiray. waa arrimaha calaaqaadka ka dhaxeeya mujtamaca Soomaaliga ah oo ruux kasta Soomaaliya fikirkiisu ku dhisan yahay iyo calaaqaadka ka dhaxeeya ayaan darsaayay waqtigaas. waxaan ii soo baxday arrimo runta aan la qaybsan doono caawa. waxaan rajaynayaa inaad su'aalo mawduucan ku saabsan u weydiisaan oo adan mawaadiic kale ila aadina ayaan rajaynaya. waxaan ka hadlayno waxaa waaye shakhsiyadda Soomaaliga ah. shakhsiga Soomaaliga ah waxay ila tahay waxaan rabaa inaad isweydiisaan ruux kasta oo idinka kamid ah afkaarta oo rumaysan yahay maxay tahay maxaa maskaxiisa ku jira. يعني روح كستوى صوماليا اسكحي سمحة خجر سؤال شكوه هرسان كجواب النتاسو جوابتي دو مركا أنا أكتيدو محي كان نقطي وأقول خلاف كرت داركتي وحيوان بضونا كلا واكو كرا لكن وحان كهذا إنا سدح الرباط أو أي صومالو وذاك ضمانته روح كستوى صوماليا أنا فكر كاس أو كجرو هاو يرادو حاسا أبطي أيان دي شيء كان كوبات روح كستوى صومالي مركو أقول هاتوا مسلم marka waa diinta islaamka oo rumaysan yahay ambaha ku dhaqmo ama yoosan ku dhaqmin laakiin islaamnimada lagama taaba karo. marka waa ruux muslim ah. fikirka labaad ruuxa Soomaaliga rumaysan yahay waa baadii sheego waa Soomaalinimo waa rumaysan yahay. qodobka saddexaad wuxuu rumaysan yahay qabyaalad. marka ruuxa Soomaaliga uu qabiil oo ka dhashay wadanna waa leeyahay waa dawlad oo waxay u baahan tahay wadaninimo u baahan tahay muslimna waa yahay. saddexdaas fikir ayaa ruux kasta oo Soomaaliya ku jirta
saddexaas marka la fiiriyo marka qodobka korka Soomaaliya ku jirta mushkiladana haysataa waxa waaye oo aniga aan rabaa in caawa ila wadaago saddexdiiba si khaldan loo fahamsan yahay calaaqada ka dhaxaysana waa si khaldan loo fahamsan yahay mid kastoo ayada kamidana si khaldan loo fahamsan yahay marka caawa waxaan idin sheegayaa waxyaabo laga yaabo in hadda kor la idin sheegay oo alla yaabo doontaan laga yaabo in idin sheego laakiin hala yaabina maxaa jira aqoontu waxay u baahan tahay in wixii la soo dhaafo oo sida loo sheegay la kritikaareeyo oo afkaar cusub iyo talooyin cusub la keeno marka waxaan caawa kritikaareey doonaa si aan Soomaali hadaan u naqaano qabiilka iyo qabyaaladda waxaan kritikaareey doonaa san islaamka u rumaysan u naqaano waxaan kritikaareey bixi doonaa san Soomaalida u naqaano saddexaas arrimood si aan isku dayno inaan saddexdooda wada shaqeyn karaan ama wada shaqeyn karaan mid kastoo kamid ah u haysanaa iyo saan u haysan su'aalaha caawa ka jawaabaya su'aalahaas oo xoog insha Allah saari doono tan ugu horeysa waxaan ugu hormarsiinayaa qabiilka waxaan ugu hormarsiinayaa حاجة أسيقى أياه روح كستو صومالي مركي اللي ويديو لأنه رسالة بان أهايو داد كان سؤال ويديو هذا ذيك اللي ويدينه وحالك يا وانا سؤال جابت حساب وعوايا مشكلة الصوماليات يبكوا أقوين صومالي هيستعمل حاول قبل الوضع دادك صومالي انتو ربضا وحيب كليه قبيالات تفسير كود وحو نقضى قبيالات وانا تفسير أدو سهلا قبيالات عبر مشكلة المالدة مركا أنا ويديو مركا ورهدا qabyaaladu waxay ka xun tahay qabyaaladu maxaa lagu sameeyaa horta in la isweydiiyo Soomaa qabyaaladu maxaa jira ficilka maxaa qabyaaladu waxaa lagu sameeyaa waasma waaya laaluush dad bixisa ka warrama dad lagu sameey kara oo sharciga lagu jabi kara dad laaluush badan bixiso lacag bixiso haddii adeerka ma ahayd qabyaaladu adeerka ka hadlaysaa mugta iyo aftarsiina ka hadlaysaa أفتقع كوارن أفتقع يا أذكر سو أفتقع ركوب حكر قبيلة نبيرة سو ما بس وأفتقع صاحب كوارن لا مش ربحي كوارن مركب لأن هذا قبيلة كلية لو ما سمايو ينتهي الإسلام كمان مركب لقى هتلاقي قبيلة لقى ما حدين وحال هذا ظلمي كقاطن كل جيس سكستها لو سمايه أم بقى قبيلة لو سماه amba laaluush ku samee amba adigu ba qasad oo si kala u samee amba saaxiibnimada lagu sameeyo dulmi oo dhan baa lala diray islaamku marka dulmi la diray marka aniga inta dulmi la dagaalami lahayn waxaan ku soo koobnay eexda in lagu sameeyo in adeerka lagu soo koobo oo in aftiga uusan ku jirin oo seediga ku jirin oo saaxiibka uusan ku jirin soo koobo marka waxaan rabaa inaan idin iraahdo saasaan u fikirnaa markaas waxaan iska dhignay waxa la yiraahdo waxaan abuurnay waxa la yiraahdo dawlad qaran iyo qabiil قرن يا قبيل مركب عواي قرن كون وافي عنها قبيل كون وافي اسمعوا ساسا لوغو فسره ساسا لوغو شيء هذا مركب عواي هذا يشتغل قبيل اوغادا مeel kasta oo qabiil ka jiro qabyaalada ka jirta dadka qaar waxa laga yaabaa inay yiraahdaan qabiil waa la yaqaanaa oo waa la sheegay magaciisa laakiin qabyaalada la diidan yahay meel kasta oo qabiil ka jiro waxa ka jirta qabyaalad qabiilku ma noolaa karo qabyaalad la'aan بل ميجي الصومالي فيريا قبيل كو اسكو دوبنين او استفاعين او قارانك وداغين او اسكال ميسنين ما بجير كرو روح قبيل الان ميجي الصومالي جوي كرو مجو وانو قبيل ادو حتى قبيل كعشه وانو قبيل كلا كبيرو شخص اسكو جوي كرو او قبيل كبير مجرم هايله قبيل وحو لميده الدوله او كلا ولا طول ولا هي الله شرط حير ولا ملح ولا علاقات قوائل كلا ولا مركه قبيل هو الدوله وكلا سي الدولة كانوا بسيط marka Soomaaliya hadii hada laga hadlo waxaan ogahay Soomaaliya waqtiga Talyaanigu joogay waxa mishaar uu soo jiray Talyaanigu 950 ka qabiil uu soo jiray meed waxa waaye aqal taqriiban 950 jilba jiro oo diyaas la bixiya oo marka oo si waqti qaybta Ingiriiskana waxa jira 360 ayuu soo jiray Ingiriisku soo jiray marka la isku darwaa 1500 ku dhawaad marka hadda waxaan ka hadlaynaa waa kontimeeyadii marka kontanka ilaahay ka baxayso hadda marka laga soo gaaro marka laga soo wareego waqtigaas lixdanka laga soo bilaabo ilaa hadda marka laga hadlo waxaan dhihi karaa Soomaaliya waxa dadka Soomaaliyeed waxa laga yaabaa inay yihiin 5,000 oo jirib oo diya isla bixiya marka qabiilka lagu sheegana waa in deedas la bixiyo isku qabiil ah qabiilka la siyaasadeeyay waa qabiil hadda cusub hadda la isticmaalo marka su'aal saasta marka waxa waaye qabiilku qabyaalada aan ma joogo
سؤال مركب ايش طلع هو قبيلة وحرمية قبيلة وحن تعمل بعدها حتكون ميزان كسرت محيط أنا أعرف على قبيلة محرمة ما نفسي دكتور waxaa u taqaanaa dhammaantiin waa xuntaa soo maa maxaa yeelay miisaan jira miisaan lagu kala sooco xumaan iyo ficnaan xumaanta iyo ficnaanta waxaa lagu kala soocaa diinta islaamka macruuf iyo munkar waxa lagu sameeyo ku xiran haddii lagu sameeyo wax xunna way xumaataa haddii wax fiican lagu sameeyana way ficnaataa marka qabyaaladu iyo qabiilka meel jooga oo maalin kasta dagaalna kuma jiro aana qabiilna kama shaqeeye waa iskaashi bulsho oo dareen wadaaga oo wax wanaagsan sameeya mararka qaarkoodna wax khaldan sameeya sidaa darteed marka in la yidhaha ma aha qabyaaladu waa xun tahay waxaa la yidhaha qabyaalada marka lagu sameeyo xumaana way xumaataa marka ficnaan lagu sameeyo way ficnaataa kitaab la idin sheegaya qabyaalad ficnaata idin sheegaa taariikh oo aad u ficnay waa qabyaalada nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam markii reer quraysh ay go'aansadeen inay go'doomiyaan inta muslimiinta ah oo reerkiisa isoo hiiliyey abu daalib adeerkiisa oo hogaamiye ka ahaa oo 3 sano kuwa muslimka ah iyo kuwa gaalada ahay ay meel iskula jiraan ay ku difaacayeen diinta islaamka qabyaalada ahayd ilaa diin rumaysnay qabyaalada waxay qabyaalad fiican maxaa jira diinta waa lagu difaac waxaa la keeni karaa intaasoo example oo fiican oo qabyaalad lagu sameeyaa la keeni karaa marka qabyaalad wax iskama xumaadaan islaamka marka miisaanka la saaro iskamana fiicnaadaan ee miisaanka sharciga in la saaro la rabaa oo la fiiriyo ma munkara mise waa macruuf maxaa jira islaamka dhan wuxuu u qaybsan yahay wax munkar ah sameyn lagu yiri wax lagu faro sameyn lagu yiri iyo wax aad ikhtiyaar lagu siiyay lagu yiri xoray u tahay aqligeena inta ka hashatiin idinkaan ku xad gudbinin wixaas macruuf iyo munkar ku xad gudbinin waxaad idinku aragtaan ijtihaad gaartaan safaa sameyn kartaan istihaasa islaamku qaybsan saa darteed horta waxaan rabaa wax kastoo la sameeyaa in la iska cayne miisaankaas la saaro qabyaalada marka laga hadlayo halkaasaan qabyaalada uga haraya iyo fikirka qabyaalada marka yaana qabyaalad ku mashquulin عاجل قبيلة أنت كم مشغول لا فرق استحدى لقصة بالله وقت يجي قبل ما دونك ولا قبل باللاميس إلى هذا قبيلة دوا حوجي سليس وأنا صيح ماني سمع على مالك كمس حاد عي هديبا رجال بانكو هيني لقصة بالله وآخر استحدى وعينين وهيسين قربان وقرعنا وعاصمة وحكسان كوسمينا لكن وصيح حوجي سليس ما سيد ضعيفين هذا أي كنت حساس يعني من قبيلة اللي دجال مين حوجي سليس عقبة مركب ميزانك وحواي فهم كقبيلة أن فيه صلاح خلقنا لأن كان الدوانة مركب الدولة هي قبيلة علاقات الحياة وأصول غنية لكن حق جد بيعدل قدر كلامه دولة نمط طبعا دولة نمط أنك وقاعد قاعد دولة نمط إن أنك وعلى الله كان لأنك الدولة أصلا سنة استعمار في دولة أنك تحمل دولة أنك تحمل استعمار أنك تحمل دولة ذا عصر هي ما تجري دولة waxay ku dhisan yihiin muwaadiniin kuma dhisma diin kuma dhisma madow iyo cadaan kuma dhisma reer iyo reer kuma dhisma waxay ku dhisan yihiin unitka amba waxdada lagu dhisay oo asaaska u ah dowladnimada casriga waxa waaye ruux muwaadin oo waa shakhsi muwaadin ah oo waajibka dhammaan muwaadiniintaas raggooda iyo dumarkooda iyo waayeelkooda iyo dhalinyaradooda iyo culimadooda iyo caalamkooda dhammaan magacooda waa u sameeyeen waxa waa muwaadiniin وصمت حقوقه اي واجبات طبعا فكر كاسو فكر هذا كعصب هو حب الدنيا هاي waxa waaye nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam waqti markuu madiina u haajir yani markii la sameeyay wafiqa fi madiina waati heshiis la galay kusaabsan muslimuhum wa kaafiruhum taas oo mushrikuhum kuwa muslimiinta ahaa kuwa yahuudda ahaa kuwa mushrikiinta ahaa dhammaan difaac mushtaraka oo ka dhaxeeya magaalada madiina ayaa lagu heshiiyey marka arrimahaas oo kulligeed oo ku saabsan waxa waa muwaadinimadu uu asalkaas waa leedahay laakiin waxaa aad loo soo caan bixiyay qarnigan ruuxaas 19 oo markii dawladahan xuduudada loo sameeyay ee dawlad wadani lagu magacaabo ama dawlad casri lagu magacaabo ayaa la keenay marka dawlad waxaa lagu dhisay marka muwaadinimo dawladda muwaadinimada lagu dhisay marka hadii aan rabno marka inaan ku dhisno 4.5 amba qabiil ma dhareer reebana hadaan ku dhisno horta waxaa waaye dariiq khaldanay ku dhisan tahay kuma sax unitku waxa lagu dhisaayaba ma aha saas dawladdan casriga ah ma dhisan mana ku jirto waxaan marka rabaa inaan idhaahdo dawladdaas marka casriga ah ee sidaas ah ayaan marka waxaan qaadana marka ayadana waxaan ka dhiganay slogan wadani baan ah wadani dawladdaas waxay ku dhisan tahay marka qaanuun nasiib daradana haysta marka waxaa waaye qaanuunkiina looga tagay oo naloo sameeyey duftirin naloo sameeyey inuu qaanuun yahay haddaan muslimiinta maba rumaysanin
marka qaanuunku inaad rumaysaa qaanuunku wuxuu sheegaa maxaa saxa maxaa khalad maxaa mamnuuca iyo maxaa loo baahan yahay in la sameeyo ayaa qawaaniintu sheegtaa haddiiba marka arrintaas aysan ahayn arrin aas-aaskeedu yahay macruuf iyo munkarkii dadka muslimiinta uma arkaan inay qaanuun u yahay marka qaanuunkii lama rumaysin wuxuu ku qoran yahay mataqaanaa dastuurku ku qoran yahay nasiib wanaag runtii waa la dadaalay oo in wax la qoro waa lagu heshiiyey fiican markii dastuurkii 1960 Soomaaliya lahaa artikelka 98 bal akhriyo oo dowladda noqdo waxaa ku qoran mabaadi'da islaamka wax kastoo horjeeda dalka sharci loogama dhigo waxaa ku qoran yani waa qaanuunka 60 haddana waxaaba ku qoran dastuurka ugu dambeeyay hadda waxaa ku qoran marjica dadka Soomaaliyeed dowladnimadoodu waxaa waaye alkitaab wasunna ayaa ku qoran ayaa dastuurka hadda laakiin su-aasha waxaa waaye kitaabka ilaahay ba quraanka waa ku qoran tahay waxaa ku qoran وأرحكم بينهم بما أنزل الله ولا تبع الهوى marka hadal meel lagu qoray macna ma sameeyaa waxa macna sameeyaa ma la fuliyaa maxaa laga fuliyaa oo mabaadi islaam oo Soomaaliya lixdan kala soo bilaabay ilaa hadda dadka Soomaaliyeed marka ay mabaadi islaam iyo dowladda ku taqay maxay ahayd waa su'aasha iswasarafta waxa meesha lagu qoray kaliya la wasilo ma ahayd taana waxa waaye qaybta ku saabsan bal dowladnimadii muwaadinimo lagu dhisin afka laga sheegay reeraha lagu dhisay hadday ku dhisantahay reero horena reeraha waa ugu dhisneed waa afka laga ilaalinayay muxuu ahaa sharcina looma hoggaansamay maxaa yeelay ruuxa muslimka haddii uu rabo inuu sharci wuxuu u rumaysan yahay haddii diinta ilaahay tahay saddex qaybood oo muhiim ah waardiye ka haya in sharciga la ilaaliyo qofka ugu horeeya waxa waa qofka naftiisa ilaalinaysa sharciga ilaahay waa ka baqaya wuxuu leeyahay dad qaanuun hebel jibiso insha Allah hebel dad jibiso ilaa waa diinta islaamka ilaahay baa aakhira ku qabsanayo naadad ku dilaysa taasoo qodobka koobaad horta ilaalinaysa qaanuunkaas qaanuunka ilaahay qodobka labaad waxaa ilaalinaya bulshada oo ruuxa qaanuunka ilaahay jibiyo wuxuu arkaa ruux aad iyo aad u fiican ay arkaa بينما قانون كلا دوجري أنا حبا لو أكل وقوة حوالها مضى استحالة صراحة كويس وقوة شرعي قد تجيب شخص كتير بس هي طبعا واحد وقت هاي لو أكل هاي وحش حاس شرعي بلا مقيس قفكنا ما إلى عليها إلى وما عرفنا شرعي سنة ولا قدر بس هذا الشرعي إلى الناس اللي شرعي إلهي هي وحواي إلى علينا يا هيأدي دولته وشرعي قاصد إنه شرعي إلهي يا هم مثلا أيضا marka haddii qaanuunka qaanuun ilaahay laga dhigo oo la rumeeyo qaanuunkan qaanuunka ilaahay waaye qofkan waa ilaalinaya bulshadan waa ilaalinaysaa dowladdiina waa ilaalinaysaa saddexaas ayaa waardiye ka haysta laakiin qaanuunka ilaahay ahay oo wax la isku qorta oo dadku xataa waxaabaa la qorqortaay waxyaaba badan oo diinta islaamka waafaqsanaa ku jira ama kulli in wada khaldan yahay ma aha meel laakiin hadda in loo rumeeyo ma aha waxaan inay diinta yihiin inay waxaan diintayna yihiin ba looma rumaysan qaanuunka taraafikada مثلا oo loogu talagalay bini aadamka si lagu badbaado waa qaanuun ilaahay ajira dadka naftiisa lagu badbaadinayo laakiin dadku ma haystaan in qaanuunka ilaahay saas lagu mashii marka saas darteed marka uu taraafka isu joogo waa qaanuun waa khilaafaya ajira ma rumaysan in aakhira loo qabsanayo ma rumaysan hada marka qaanuunka in laga dhigo qaanuun ilaahay tisaamar idin sheegaya oo saas xagga dowladnimada marka dowladan qaanuun ku dhisnay dadkuna aysan muwaadiniin ahayn dowladnimada saas dowladnimada وعنو من الإسلام سنة فهم سنة منك فهم الإسلام رسول الله وشو دين حتى لما بليم تبادوا مسلمين عارف بالنور أو دين الإسلام قام الناس الحين لو كنت استعب لما داس بليم وكيف كنت عارف مطلق في شمالها حاجة هرمك عرالها وهو وصايا حاجة دقالة وهو دقال بدن ومالك دقال كسعودة حاجة قاعدة وهو قاعدة البواقر تقول بدنيها حاجة الدولة بدأوا أي خبران بحر ومسلمين دول عالم كلام كده كرب كده أياك أيا أقول لي كده مسلمين هكذا سكر لي كان لكن نقول لك قدر أياك المسلمين هذا مركز الدين الإلهي أي هم يسمون أو هم ده يعني لو صح فكرة الإسلام كان الله يستعمل أساس من وقته مركز الدين الإسلام كان مركز كارسين هم قابلين سدحتين qaybta ugu horeysa oo islaamku ka bilowdo awaaye waa shahaadada ama tawxiidka la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah ya islaamku wuxuu ka bilowdaa la
ها بأنا أنا فكرت الناس إسلام وقبل ذا لا ما يقبل ما يوحى كان روح روح العبادة إسلام وقبل ذا حر وقبل إنسان كله حر وقبل الله إنسان كله كحر ونفتيسة يوحي جعشها dadka kale waxay rabaan islaamku dadku inay ka xoroobaan bulshadu waxay rabto islaamku wuxuu waaye wuxuu ku sheegayaa waxa kaliya oo aniga inaan warkiisa yeelo ay tahay oo hogaansamo ay tahay inuu had ilaahay kaliya inta kale kulligeed hadii ilaahay khalaassan tahay warkooda ma yeelayo marka qorta kaloo tawxiidka sheegaysa xornimo bal inteeba muslimiinta xor ah oo rumaysan in ilaahay kaliya ay u hogaansamaan oo uusan risq uusan qaadin oo dabaaqid iyo niman kibri ee madaxda oo sababkooda iska raacin oo una san qabsi iyo naftiisaba uusan raacin yaabaa hubaysan marka laga hadlayo horta halkaas ka bilaabaysa xurmana horta ana har mesela aan xur lahay laakiin intaas badan xurma marka islaamku wuxuu ka bilowdaa laa ilaaha illa allah oo ah quraan ahay oo ilaahay kali ah ayaan warkiisa yeelaya kabacdina san ilaahay warkiisa yeelaya ii sheegaya نعم محمد إيشيغ عليه الصلاة والسلام القرآن كله يفوت تجي هي أحاديث تيست يسمى سأيام أنا قلت لكم يا جد كسحب على إلهي إله كنت أصهر توقيت بشيء بركة توقيت كاك عرفته وحاكم حاجة قريب لي هذا وقلت أنت بتصاف مفهم سنين والله توبر عنك ثم كاتح وهذا شيء توبر المديرية صلاة صوم حج كانت الإسلام لما حاول واحد أن طبعا يصير بني آدم كلا عبادات خفت عبادات laga rabo kulli wax kala ma ee waa tababar waxa lagu tababarayaa inaan ka bixin nidaamka ah in ilaahay kaliya oo kaansan oo dhaw baad kaliya raacis oo inta ka hor kulli been khilaafaan alayhi salaatu wasalaam addiis marka waxa ku haysa marka ilaahay ku maasan tahay iyo diin ku maasan tahay ko tababar lagu siiyay tababarkaas marka maxaa laga rabaa marka ujeedada wata objective-ka laga rabo oo ugu dambaysta meesha ugu dambayso oo laga rabo marka maxay tahay waxaa laga rabaa sida nabigeena calays qasam noo sheegay hadiis nagu sheegay inamaa bucithtu bitamima makaarim al-akhlaaq tababarkaas oo dhan kulligeed waxaa lagu siinayaa inaad akhlaaq yeelato salaada soonka xajka waxaad qabanayso ducaad salaatuleylka aad dukanayso quraanka akhrinayso dhammaan waxaa laga rabaa inaadna been adan noqonin نقوم أنا حائل نقوم أنا أتكلم ديني من واحد حال كرته من مسكين كنا حريصته يا أنا ظالم بسكيل السوق أخلاق الأساس أخلاق الأساس لجاه مركا إنك هذا المسلمين مركا أخلاق الأساس من مقام إنت دينتي objective وقدام بيا لجاه outcome مركا لجاه الله يبغى يمشي outcome كويس كاسة أديك لجاه سنعد الإنسان كي وحلا متى أمنا رواياتكم توبروا توحيدكم مبادئ أصل مسند وأصل نص مركب حالة رواء دي مركب توحيد كاج هي توبركاو أي أو كم تحسوا ساري بايا ونقول بس الروح مشاة أو آمنة أو مثلا عن مساكين دون حريص فبريس الكتف ولا تبارك أو بس تقديري بن آدم تقديري ده مقوس وأقوم على الدين الإسلام كان إليه تاهم سائر كان كذا سادوا كذا واحد شيء حارانتنا waa cuna sarteedna waa dhistaa madana agoontana waa dhacaa wax alla wixii xumaanana waa sameeyaa hadda waxa waaye waxaad la mid noqonaysaa mataqaana ruux meel jirka lagu dhisa tegay jinistiga tegay oo marka jim inta galay murqa inuu la soo baxo go'aansan oo murqa ka soo bixi waayay marka ninka ruuxaas waxaan daalahay inuu kororso jimka ilaa murqa kama soo bixin marka islaamka waxa laga rabaa ultimate objective ugu dambeeya diinta islaamka laga rabaa waxa waaye لأنه مكارم الأخلاق هذا مكارم الأخلاق في لواينا وحكى الشقيها هي حزب من دين ما نقدر ليه من هو كان يخبر لنا طلع كان لنا دين إلى هاي الربع جديد الربع مرة مع الدين تسمى ساعة ما قد دين تحاول تفهمسين دين وأنا لما أخلاق الدين المعاملة حسب هو مرة بين الحديث بدل يعني القرآن بدل شيء حاول وأنا فهم سمعت ما ممكن عالمنا دين الإسلام كهو حكما أخلاق ذي بلشدة السودان مع الصومالية فيريا وبناك جوجو إسفيريا وجودا جوجو إسفيريا أخلاق ذي نتيمتها لا رأي وبني آدم إلى هي كهو وحضارة اسمها مسمى أخلاق ذي أخلاق دينتي
ujeedadooda rabaa kama soo xasin oo dowladnimadiina sharci iyo qaanuun iyo muwaadin ay ku dhisan tahay ayaduna meesha ma aysan imaanin qabiilkiina waxaa waaye waxuu noqday ul wax lagu goosto ma noqonin qayb si fiicneed oo wanaagga ahayd waxaa qabyaalad laga dhigay dhalinyaro hub loo dhiibo oo mooryaan ah oo lagu shaqaysto dadka la saarto iyo dana reer hebel haddaan nahay in siyaasigu ku shaqaystaa laga dhigee lagama dhigin saas darteed waxaa waaye saddexaas qodob markaan fasiray oon saas ku fasiray waxaan markaan rabaa marka dowladnimada baan la aadaya marka ilaa meesha fikirna waa xaggaas dowladda Soomaaliya markaa la dhisay isticmaalka markuu dhisay dowladdu waxay tiri waxaan col la ahay fiirsadayaa waxaan col la ahay dowladnimada waxay col la tahay dadkeeda dowladda dadkeeda col la ah waxaa jira dadkeedu maxay yihiin dadkeedu laba unbay rumaysan yihiin mujtamaca Soomaaliya kan dowladda Soomaaliya qabaa'ilna waa yihiin muslimna waa yihiin waxaan intaas ahayn oo Soomaaliya loogu imaanayo ma jirto waa qabiil iyo muslim marka dowladda kamid waxay tiri qabiilkana waa la dirirayaa islaamkana waa la dirirayaa marka macnaheedu waxa waaye dowlad la dagaalamaysa dadkeeda la dirirayaa dowladda inta kala baa u fasiro guri dowladda waxaa ka soo qaaday guri la dhiso kale guri weyn oo la dhiso isticmaal ku dhisay oo Soomaali lagu cabiray ya Soomaali lagu cabiray waa la iska dhisay gurigaas Soomaali baa leeyahay gurigaas gala markaasay gurigii markay galayeen la sii galayeen lama baro was buurtana was dardareen wax dhint iyo wax dhaawacay noqday gurigan waa dumiyey waa dowladda Soomaaliyeed ee lixdan soo bilaabay ilaa 90 gurigan waa dumay dadkuna waa dhaawac wax dhintay waa dhaawacay noqday ayay gurigaas guri Soomaali dhisay oo ku heshiisay maahan 10 sano ka bacdi dowladda halka la ah 10 sano ka bacdi ayaa haddana waxa la wada dowladda aan ma joogi karnay soo waxyaana afta la isugu tagay marka Jabuuti la isugu tagay aan wada dowladda loo keeno laga soo dejiyo oo heeraha loo keeno forban difaaca marka dowladda laga keeno qabiil sida qaranka ha loo qabsay dowladda ismana dowladda casriga ah ee muwaadiniinta ku dhisan in qabiil loo qabsado ay kuna ismala ayadana 10 sano la ka soo wareegto waa dhaqaajin la'yahay oo waan wasalaana oo meelna ma aysan gaarin marka laba xaaladood oo aan ku magacaabo waa laba sayf labood ayaa Soomaaliya la gaarsiiyay laba extreme bal aba tadarruf waxa waaye qaybta ku saabsan dowlad Soomaaliya lagu cabiro la dhisay iyo dowlad qabiilkii loo keenay labaduna ma shaqeynayaan marka dadka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inaan aqal cusub talan nimaado dowlad lagu cabiray bulshadayna rabaa la keeno oo bulshada iyo dowladda heshiiskii la keeno marka dowladda iyo bulshada ay coloobeen bulshadii dagaal ku rogaan celisay marka dowladnimada waxay ogtihiin laba arrimaha dadka Soomaaliyeed rumaysan qabiil oo qabyaalad ka dhalatay iyo islaamka dadka kooxana diinta islaamka dartiisa ay ku coloobeen dowladda waa xarakaadka islaamka oo dhan magaca rabto bixi qorana waxa waa jabhada qabiil ay noqdeen labadaas ayaa lagu rogaan celiyay dowladda sar uga dagaalamay وقرية قاتين وانا كبعد لابد markay la coloobeen dawladdu way dumiyeen marka dawladdu waxa lagu dumiyay xanaaqi laga xanaaqay maajir bulshada dawladda la dirtay kabacdi hadda waxa waaye waxa inta xanaaqaas ugu waajibiya qabaa'ilkii wali ma daawoobi lama heshiisiin ka laga soo masalaaxa islaamkiina ila dhaqankiisa lama haayo xanaaqaas inta si bataa rag qaar la hadda diinta islaamka magaciisa sheegana qoriyo qaadasho waxay waqtidan carruurtayna maqarxinayso istilaysa ayku istilaya Soomaaliya dilaysa oo jirta meesha xaraaqa ka soo bilaabay arrintaas ma aha arrin hadda iska timid ma saadarte marka laga maarmaa ayaan qabaa in waqti marka ugu horeeytaan Soomaaliya dawlad noqon daaran oo in heshiisiyaa bulshada iyo dawladnimada heshiisiyaa waan dawladda lagu dhisaa qaanun dadkaynu qaanun ku yaqaaniin وأن دولنا لو قصة مواطن ما لو قصة بدك تسميها حقوق الواجبات لو قصة وأن فهمك الدين اللي بدلها صلاح يست أي صنع هاي المساجد تكلم تجاهها أو عنق صلاة زوج كذا صلاة محاكة عشوة الناس صلاة تمنع عن الفحشاء والمنكر صنع صلاة محاكة عش مساجد الحين سبحان الله سبحان الله حمطة ما كان وحاول قارن كقبيل كذا الوضع يعلمه قارن قبيل في عن كم هطلع يا أسوأ في عيا في عن ولا سكال لكن بقال بالجال عم كأرونا حم يعني في الشغينية ظلم أيام طرف كنا قرية حج كنا سنة كستان تجية ولا حرام ولا حجنية
ummadda xoolaheena saraaxa dhisanayaan xalaal iyo xaaraan nooma kala socon qaabka noocaas dowladda uma noqonayo marka taa horta waxaa waaye waa qaybta aan uga horeysan rabo caawa inaan aniga iisoo bandhigo dabcan tafsiir dheere wax kastaba leeyihiin waxaan isleeyahay maadaama dadkii dhegaysanaya oo isugu jiro dad badan oo mataqaanaa oo qaar aqoon-yahano yihiin qaar ay culamo yihiin muxuu ahaa diinta islaamka aad u yaqaan qaarna ay dadweynihii soomaaliyed yihiin ma raba inaan marka u galo qaybo tafaasiil badan inaan galo marka waxaan rabaa inaan idinka dhisiyo su-aalaha markaa kabacdi marka aan discussionka waqtiga ugu badan aan gelin waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورك aad buu mahadsan yahay wuxuu ka hadlay يعني موضوع loo baahnaa aad u qiimo badan oo dadka qaarkood waaba ka raad kataanba marka 40 daqiiqo aan ugu talagalnay hadda 30 buu ku soo gabagabeeyay marka dadweynaha idin furaynaa telefoonka meeshuu idinku qoran yahay waa u jeedeen marka qofkii raba localka UK-na dee ayagu telefoon ahaana u soo wici karaan dadka kalena WhatsApp-kay naga soo wacayaan marka lambarkii wakaas meeshaan ku qornay war ku qornaa marka qofkii raba ana soo waco laakiin waxaan weydiinaynaa marka waa saa u sheegtay arrimihii diintana ka hadashay laakiin hadda markii u dambeysay dib heshiinta ka hadashay oo la taaban waa run waxbaa kor laga salaax dadka waa la kala gidaaday waa la islaayay waxbaa godob baa la kala gashay dad baa la iska laayay waa run haddii dadku dhahaan iscafiyaan oo ay dhahaan gacanta lay saaro oo waa ku cafiyey weligeed Soomaalidu saas ahayd waa la isdagaali jiray laakiin waa saas sheegtay marka dib heshiintii maxaa marka loo fududaysanaya tore oo looga dhigayaa wax sahlan oo in la isaga gudbo jawooyin iyo siyaasad kale laga hadlo maxaa arrinta loo fududaystay su-aashaada cabdulwaaxid waxaa waa muhiim jiddan arrinta su-aashaada Soomaaliya dagaalka daraasa aniga aan sameeyo qoray waxaa kamid ah inteebaa dowladda Soomaaliyeed ayadoo dowlad ah ilaa dowladda qof ma ahayn dowladda Soomaaliya 3 sano jirtay waxay khalad galaysay haba kala badnaato oo 22 sano ugu dambeysay khalad ha bartay waxay khalad galaysay dad muwaadiniin Soomaaliyeed qaarkood waxay ahaa si qabiilnimo ah ay ula dagaalamayeen dowladda oo si jamaaci ah ay u dulminaysay dhibaatooyin badan oo dowladda iskeysatay xadgudub weyn oo xaqa xuquuqda bani'aadamka ee dowladdaas gashay waxaa kaleetooda xadgudub weyn xaqa xuquuqda marka dowladda la dagaalamo leeyahay oo si qabiilnimada ula dagaalamo jabhadihi magaca qabiilka ah jabhada control ma ahayn oo discipline leh oo waa waray ayaa la yiri muddo tol iyo waxba loo yeeray ayaguna markii ay dowladda burburtay ayaguna magacii jabhadaha ay dagaalo badan ku huriyeen inta waxaa la jirta meel aan dowladna ka jirin si Soomaali wuxuu noqotay dhaqankooda hore marka ninkii qoryo badan oo mataqaana xoog badan ayaa reerkii xoog qoryo badan haysta reeraha kale ku duulay isagoo hadda siyaasad ujeedada kala hayn oo abu wax ka xoogay abu wax ka dhacay marka saddex mustawaa dowlad wax lagu hadlayay magaca dowladda lagu hadlayay magac jabhadeed wax lagu hadlayay magac beeleed wax lagu hadlayay saddexaas marka arrimood lagu hadlayay waxaa la rabaa oo la kasta waxay hadlaysaa marka inay ka garowdaan la rabaa inay gar naqdaan la rabaa inay timaadaan raba ma aysan dhicin arrintaas waxa waaye arrinta ku saabsan Soomaaliya dhibka ka dhacay see loo daaweynayaa haddii diinta islaamka loo celiyo waxaa tusaale u noqonaysaa fatxu maka nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaa waxa dhaca dagaal sokeeye marka la tafsiirka casriga la siiyo yani waxay ahayd 8 sano oo laga bilaabo waqtiga fatxu maka iyo madiina u dhaxaysa iyo 13 sano oo ka horeysa oo waqtiga nabiga calayhi salaatu wasalaam soo bixiya marka la isku dar waa 22 sano 22 sano la caburihaaya mar dagaal toos ah lagula jiro iyo mar la adoonsado iyo marka la dulmiyo muslimiin Soomaali guriyada ka carreen way soo noqdeen marka 22 sano bacd nabigeena wuxuu sameeyay calayhi salaatu wasalaam nabigeena wuxuu sameeyay 4 talaabo qaad 4taas talaabo Soomaaliya hadda laga helo waa haddii la rabo Soomaaliya inay nabad noqoto oo dawlad noqoto oo carruurteena tamaysa isdilin oo cuqdada la dhameeyo mid waxa waaye waa afwi caam afwi caamka waxa dadka intiisa badna waa la afiyay ko qaar nabigu wuxuu yiri haddii astaarka kacba ku degan yihiin waa in la dilo baba la afi karo dambiga ay galeen dambi la afi karo ma marka عملنا سدات روح هاي ندير كرو حكومة أفر كم ده اللي دلي أفر نوع عرضي أفر تعرضتي وقد ما يستوى العافية أفر تعرضت مركز صون نقول على بالشدة وحيد ترى عادس هلا عافية يا رسول الله وعافنا إلا العافية والعافية أفر مركز هذا عي عفو عام هذا عي ده الدم بيجي الوقت على جشته أو بتقار الدم بيجي ده اللي يجود على جشته
qaar waxaa jirta ay koo dambiga inta lagu qaada kabacda la cafiyaa jirta waxaase intaas ka sii muhiimsan waxaa la bedelay oo total reform lagu sameeyey institutionka dulmiga sameynaya waxaa la yidhi laa farqa bayna carabiyin wa cajamiyin ilaa bitaqwa marka ninka reer quraysh ahaayee shalay kibirsanaa waxaaba ka fadli badanba bilaal oo la yidhi adin yaa bilaal soo lama bilaala ka fadli badan ninka shalay adoonsan jireen ninka madow u yaqiineen waxaa jira wasaabiquun alawluun ku jira asna saa darteed waxaa waaye dadkii waxay noqdeen dad muslim yani almuslim ba akhul muslim marka institutionka dulmiga sameynaya waa la soo maray afartaas qodob ayaa la sameeyey marka Soomaaliya waxaa la rabaa in afartaas qodob inta la keeno mid iscafinaya dambigu horta khaladkuna khalad waxaa jira shakhsi galay iyo khalad koox kastaan idin sheegay iyo khalad qabiil galay iyo khalad dawlad gashay marka waxaa soo dhigtay waxaa rabaa in xaalad kasta sida inta loo fiiriyo xaalad kasta waxa loo helaa la rabaa haddii aan rabno Soomaaliya inay daawo daawadayaal waxaan ku jirnaa weli barnaamijkii waa showi gaar haye mawduuca caawa diinta iyo dawladnimada waa gaar haye waa golo gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka joogaan u gudboon yihiin fikirka waa lagu kala gedsnaan karaa laakiin danta guud waa mid dawladda gudnana ma siiso inay sheegnay oo yani mucaaradkana gacan saar lama lihin cid gooniyana kuma xirnin gabagabada hadalkuna waa aan ku garownay gaar haye ugayiga ilaali oo u jeedaan maanta Super Saturday baan u bixinay saa idin ka balaqaanay hal abuuradii hiba iyo Axmed Salaam bida arkayseen Faisal oo aqoonyahan maadi ku dheereeya ah iyo Dr. Cabdiraxmaan oo maadiga iyo diintiiba ku dheereeya saasoo kalena soo wadnaa dad aqoonyahanaa labeentii Soomaalida halkan la soo keenay marka shargareeya hal la isgaarsiiyo Vitore dad badan ba hadda soo qorayay dad badan oo London ku arkeen waa arko waxa leeyahay Vitore oo kala ku fiicnaan lahaa nin ciidan soo arkay oo garanaya loo tababarayba inuu waddanka difaaco iyo dadkiisa diintiisa aqoon diineed la mid maadi leh asagoo kale ay ahayd in loo dhiibo haddii la dhinac marana wax kala soconaya ma leh marka dadku Soomaaliya inay arko oo qof wax loo dhiiban karo ay u dhiibtaan horta waa aad u mas'uul laakiin waxaa idin sheegayaa horta Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed ma aysan gaarin waqti ay codkooda bixiyaan oo ruuxa ay rabaan horta ay doortaan nasiibkaas wili ma aysan helin waxaa ugu dambeysay cod 1969 codkaas naftiisa waa lagu shubtay oo nimankii joogay oo madaxda ahaa maasuq ay ka shaqeeyeen marka shacabka Soomaaliyeed weligiis ma uusan arkinin doorasho cadaalad ahna ma aysan arkinin codkooda in la qiimeeyo ma aysan helin haddana waxaa waaye laga soo bilaabo markii carta laga soo bilaabo markii dawladda dib u soo celinta aan bilownana waxaa waaye maalinta ka dambaysa madaxnimadu waxay ku dhisnaanaysa ma ahayn cod dadweyne ma ahayn shakhsiyaad yaroo kooban ayaa codka bixinaya ayakana in badan oo kamidu xaalkooda wad ka warqabtaa waxba anaga tafsiil igama rabto marka arrintu waxaan ka shaqaynaynaa haddii la yiraahdo Soomaaliya waa inay gaartaa ma aha aniga ma aha waxaan ka hadlayno laakiin waa inay gaartaa ruuxa Soomaaliga inuu codkiisa si xun u bixi karo in la gaarsiiyo marka maalintii ma taas gaarto ayaa mas'uuliyadda shacabku qaadanaya laakiin hadda shacabku wax mas'uuliyad u leeyahay ma jirto hadalkiisuna hadda qof dhageysanaya ma jiro marka laga hadlayo systemka dawladnimada cusub waa tahay daawadayaal weli barnaamijkii baa noo socdaa uu marti noogu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyow oo jaamacadaha iyo ka soo shaqeeya aqoonyahana ah dadweynaha qaar baa lambarka khaldan lambarkii ma khaldana waxa weeye haddaad dibadaha ka soo wacaysid qof walba waxbuu uga baxaa anaga eber baa uga baxnaa UK markaan joogno marka qaar 0 wax kale uga baxaan marka waa 44 74 79 72 42 eber waana ku qoran tahay meesha ciwaanka ka soo gelaysa baa ku arkaysaanba 44 74 79 72 42 eber qofka UK jooga asag waxaan uma baahna duruba eber 74 buu ka bilaabaya way yaqaanaan sida loo soo galo marka Dr. waa nala joogaya mar walba gaar haya waa gulihii dadka aqoon-yahanada ahaa asaga iyo dadka la mid ah baa golahan loogu targeeyay inay ka hadlaan marka qofkii raba waa soo fikradiisa waa soo dhiiban karaa Dr. ardayda soo saarteen waxbarashada waxay ka mid yihiin dadkii hadda dawladdan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad u taageeray marka waxaad moodaa hadda halkaaba soo dhowba haddii la kala dooranayo madaxdii oo dadkii la islahaa waxa lagu tuhmay wadannimo iyo hawlkarnimo la dooranayo qolyihii dagaal oogayaasha xoogaa laga soo cararayo marka
مثل مركا هذا إنكستو ساشيكتي هل قفي هل عد ولا أن لجارين مثل هاي دليرنا وحبرتين بهذا سي يسوها بيان هذا يصاب قوة ذان إن المركا الدنبه كدول دعيان قف ودن كسبة بحين كرا horta markii si dhab ah loo fiiriyo dowladnimadayna kala fiirsho markay burburta ka bacdi oo 10 sano ka bacdi haddana carta aan jabhadiinta la dagaalanay magaca bulshada rayidka ah ee dowladdu soo sameystay 10 sano la maraya dhinac marka la fiirsho anigu waxaan iraahdaa laba si dhinac marka laga fiirsho meeshii laga yimiday oo ah dadka Soomaaliyeed oo dagaal sokeeye ku jira iyo dowlad burburtay oo aan la aqoonsan si dib loogu soo celiyo iyo caalamku xataa aan aqoonin dowlad kumbaliid la burburtay sida laga yeelaa aan la aqoonin iyo Soomaalida oo fikirkaas aad ay u kala taqsanaa marka la fiirsho meesha laga soo bilaabay 10 sano marka laga fiirsho waxaa la dhihi karaa waa meel fiican la soo gaaro meel oo awal dowladda federaal ay ka jiraan oo dowladda la Soomaaliya madaxweyne ka jiro oo ra'iisul wasaare jiro oo baarlamaan jiro oo ciidan la dhisay la leeyahay الدولة إنه اعترفت بأن الدولة ما ممكن فيشه فرتا وعرض runtii la dhihi karo waa jid dowladda badan aan uga horeyn hadda kuwa badan ay jidkan anaga meeshan ka soo baxan hadda sii gelaya anaga hadda waa ka sii soconaayo hadda dowladda u soconaa ummado badanna waxay gelayaan meeshan ka soo baxno hadda burbureen hadda marka ayaa sanawaad dheer ay ku qaadan doontaa in jidka anaga soo marno kala ay soo maraan laakiin dhinaca kale marka laga fiirsho 18 sano ma yara 18 sano marka horumarka aan sameeyno xagga dowladnimadu markii wixii aan sameey karna loo fiiriyo tabartayna ma buugna meel fog lama gaari hadda marka la soo gaaray waxa waaye jid kale oo la maro ma jirto oo ahayn in doorasho Soomaaliyeed doorasho ay aado maxaa yeelay waa la soo maray 4.5 iyo qaab qabiil kaligiis qoraay waa la soo دكتور telefonka qaadayna qof baa ku jira marka aan u dheereeyo codka dadku hala maqlo marka وعليكم السلام walaal soo dhaw دكتوركم والسلام وخير الله في برنامج ساعاتكم كمقبتين ويعيد وفاة شاكم soo dhaw walaal faad دكتوركم حاضرين حاضر مثل قرابنا ورجع دجالنا كمان وكي تبقى واجد ولا مرش على كلام إنه حيكون عن مالكي وهو مسلمة على ذاتي بعينه من الموضوع حلوه على الشرع واجد وحير صدورت بلين دكتور ما مقليسان هذا القعدك وهذا مقلم معي قابنية اوكي سوق مركا عدكا قابن بعد مدة صعب بعري وقت داعي سنو قادم marka waxaan isku dayeynaa codka inaan bal dheereeyo okay ay hadda hadal bal حافي عن هذا قد جايز سؤال يقول سؤالي ولا dhibta jirta fahado markana habeynayna arintu isma toosna marka dadkii baana xun oo doorkuna kuma maqlayo anna haddaan ku celiyo waqti baa dhumaya marka khayr Allah ku siiyo waxa weeye wuxuu ka hadlayaa doctor dadka ishaya kooxaha ishaya waxaas marka barnaamijkuna ma ahayn oo waxaad ugu talgashay cidna ma taaban marka taasaan ka raali gelinaynaa doctor qofna qabta kuma fiirin marka haddii loo baahdo dadka ka hadlaya jooga marka akhi faad aad baa u mahadsantahay barakallahu fiik assalaamu calaykum doctor marka sii wada marka walaalku wuxuu ka hadlay kooxii dadkii qayb ka mid ah marka awal baan ku talagalnay waxaan marka rabaa inaan idhaahdo
jidka hadda Soomaaliya u furan waxa waaye mar haddii konton iyo kowna la soo maray 4.5 iyo kacba qabiil la soo maray jidka u furan waa dadweynaha Soomaaliya in codkooda bixiyaan waxaan malayhayaa hadda xukuumaddan maanta joogto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxweynaha ka yahay iyo Xasan Cali Khayro oo wasaaraha ah kullu way ballan qaadeen in doorasho dhacayso 2020 marka aan ka wada shaqeyno in doorasho dhacdo waxaan aniga rumaysanahay dowladnimada Soomaaliga runta waxay la bilaabataa markii shacbiga Soomaaliya codkooda ay bixiyaan inta ka horeysa waxa waaye xeer jajaba ku socohayna iyo jacab halkaas ka bilaabataa marka waxaad moodaa khadka telefoonku waa iska xoogaa iska qalab waaye caawaba ugu horeysay maanu samaynba laakiin waa u diyaarinaynaa system ka fiican marka si fiican baad u hadashay haddii xataa qof qoraal soo qora oo websiya waa siinaynaa marka aan fiiriya marka dadka soo qoraya marka maxaa marka doctore hadda waad aragtay xaaladii say tahay wadankii adinka howlaha soo gasheen waxbarashaa ku jirtay hadda marka adiga xagee wax ku marayaan marka jaamacadii baa ku noqotay mise horta waxaan isku ogeyn aqoon in laga hadlo ma ogtahay oo caawa goobtii siyaasadda ma aha aniguna waxaan inaan la isku dhex darin iyo inaan aqoonta la isku dhex darin aqoonta aniga marka waxaan koofiya badan baa igu jirta oo koofiyad marna waxaa waaye isma dhex geliyo markaan macallin noqonayo oo ruux akademiga ah oo dadka Soomaaliya inuu wax baran raba oo la qaybsada aqoontiisana waxaa waaye mar raba inaan siyaasad lahayn marka siyaasad ka hadlaayana waxaa waaye farxad siyaasadeed ayaan rabnaa inaan ka hadalno marka in la isdhex geliyo horta aniga horta ma rabo may waa ku saxsan tahay waa ka raaligelinaynaa barnaamijka iyagaba maba ahaynba wax ku saabsanba waa dib-u-heshiin baa xoogga saarnay marka dadkiiba xoogaa frustration baan ugu dhaco markii hadda bahalkiina halaabaan su-aasha iska soo booday marka waa ka raaligelinaynaa waxaan rabaa inaan sii fasiro qodobada gaar inaan sii fasiraan rabaa waxaan rajaynayaa marka in aan fursad ka dhigano inaan sii fasiro su-aal kolleyta dadku ay qabaan su-aasha dadka ay qabaan ugu muhiimsan waxaa waaye maxaa Soomaaliya dowladda Soomaaliyeed maxay ugu mashquulshay la dagaalanka cadaaladda telefonkala soo dhacaya waxaan leenahay dadka caawana ka raali lahaada haddii bahalku u shaqayn waaye assalaamu calaykum tutor bahalkii baa xoogaa xumudaa cilad baa gashay waa la maqli waayey marka anna waqti buu nooga qaaday inaan ku celino marka caawa ayna ka raaligelin laakiin haddaad ii boobsiin kartid tutorka waa gaarsiinaya su-aal ku saabsan hawshu ka hadlay mawduuca ku aadan بس marka walaal waa aad baa u mahadsantahay kaliya qaybtan iyaan la saddex gelin buu qaybtan bal codka iyo halka qof baan isku daynaa siyaasad dirta aan ahayn maartay in wax ka dhaho marka aad baa u mahadsantahay jazakum khair dadkana waxaan ka raali gelinaynaa walaalayaal caawa raali ka ahaada khadkaas saas oo maartay si fiican la soo maqli maayo mar kale habaynaynaa marka walaalkan waxaan leenahay akhi waan soo wacay barakallahu fiika hadan bal doorka weydiinaynaa aadan ku maqlay horta waxaa waaye waxaa la rabaa in Soomaaliya hal qof hal cod gaarto
waxaa waaye horta mashruuc dowladnimo wada mashruucii dowladnimada halkaasoo ku jira laakiin waa inaan ogaanaa haddii khaladku hadda aniga waxaan idiin fasiray ma ogtahay waxaan idiin fasiraa dowladnimada micnaheeda iyo khaladka laga fahamsan yahay waxaan idiin fasiraa qabiilkii iyo micnihiisa iyo khaladka laga fahamsan yahay waxaan idiin fasiraa islaamka iyo micnihiisa khaladka laga fahamsan yahay haddaan marka shacbiga soomaaliyeed ay ku ordaan ay ku boobaan niman hadda madaxa ah oo amba la khaldanaa kara amba la saxnaa kara waa dadku u qaybsamaan qaar u sacbihaaya oo guulwadaynaya iyo qaar wax madow keliya ka arko wax fiicanba aan ka arkin oo xumaan un ka arka dadku hadday u qaybsamaan horta caqligeena ma kubcina ogaada caqligeena wuxuu kubcayaa markaa dowladda hadda jirta iyo dowlad kasta iyo maamul kasta meel jooga aan u aragno wuxuu ku khaldan yahana miisaanka aan saarna aan daay idiin sheegaya إنه واحد يرتب مركب وحخلدنا إلا لو خلدنتها لينا مركب وحصحنا واتكو صحنتها واتكو صحنتها إلا ده سلاس أيها الدولة ده ما ده إنه كل ما كرتها كلية مركب كهذا لين مركب الدولة كهذا مركب عرباته لما كانت مضحى بقى وحكوه ريك وكلا تضايق كلا بدأ وصوماليا وكلا كسيه ري عن مرينا حكومة الشهر عن مرينا عقلك صوت الله مدحوينه هو عبد القاسم يا عبد الله يوسف يا الشيخ شريف يا حسن الشيخ محمود يا هذا وحواي مدحوين عبد الله فرماج مدحوينه شراد واي laga soo bilaabo 18 iyo xukuumadii aad hays warsanin inta ra'iisul wasaare la sameeyay iyo hays warsan inta wasiir la sameeyay inta taliyaal ciidan la sameeyay waxa xad ma laha noqtay waxa soo dhow kulligeed waxa dhihi karaa marka si fiican loo fasiraayo oo si yani aan xumaan iyo samaan aan raadinayn yani aan guulwadaynaynin isla markaasna aan waxa madow kaliya arkaynin xumaankii laga shaqeyn waxa waxay ahayd wax ismaaya laakiin aad u dhismila عائلة فرصمدي بان سي waxa lagu dhisay ayaa si nooga khaldan saan uga fikrayna dawladnimada naga khaldan saan islaamku uga fikrayna naga khaldan kuwa diinta islaamka sheeganaya madax naqdeen marka madax naqdeen dhaqankii islaamka laga rabo kama bedelin kan islaamka ahayd maalin marka sharciga aniga oo Djibouti lagu qabtay ayaa waxaan ku iri soo gabagaynaa hadalka ayaa maxad Soomaaliya u sheegay waxaan ku Soomaaliya maanta waqtiga uu fiicnaa soo gaartay salaalsan uu fiicnaa fiicnaadada waxa waayaan ku Soomaalidu qabaa'ilku waa isku faani jireen reer kasta wuxuu dhihi jiray anaga reer bal ka fiican oo markaan madax noqono cidayna madax noqdo waa la arki doonaa reer kasta madaxay noqdeen ama gobol madax ka noqdaan dowladda federaalka ama ra'iisul wasaare ha noqdaan madaxweyne ha noqdaan laga soo bilaabo 60 reeraan madax noqono Soomaaliya waa yariya dhammaantoodna waxay ku dhamaadeen dowlad xumi dowladdii burburtay iyo dowladda ka dambeeyaba dowladnimadu waa la soo celiyay marka waxaan ku iri Soomaaliya reer u faani kara maanta xagga dawladnimada waxa kale toodo aydan aan isku faani karin aan dhigay wadaadadu waxay dhihi jireen hadaan ruux wadaadu oo madax noqdo sidoo ilaahay ka baqayaayo oo xoolaha u badan cuni maayo cadaaladna waa sameynaya ilaahayna waa ku daray marka wadaadada madax noqday marka wadaadada madax noqdeen ayagana waa u faani waa kuwa wadaadada ahayd xoolihii ummadda waa la iska dhaafi waayay cadaalad iyo sinaantina waa la keeni waayay marka wadaadkuna ma faani karo waralna ma faani karo wadaad waxa kale tada soo baxdaan ku uri gabdho badan waxay u halgameen siyaasadda soo kala arta laga soo bilaabo ilaa hada 80 doolar xildhibaan gabadha ilaa ra'iisul wasaare gaar madax ay noqdeen marka gabdhihii marka waxaa rabo waqtiga waxay dhihi jireen haddaan marka madax noqono waxaan noqonaynaa dad harka waa ka bedelanahay oo annaka waxaan nahay dad aad u naxariis badan nahay oo shaqo fiican qabanaya gabdhihiina waxay ka fiicnaa waayaan rag raggiina gabdhihi waa ka fiicnaa waay marka ragga gabdhihi waa ka fiicnaa waay gabdhihi ragga waa ka fiicnaa waay culamadii waa ka fiicnaa waay sabab madax noqdaan kan caamiga waa ka fiicnaa waay qabiilkana qabiil waa ka fiicnaa waay marka waxaa soo gaaray marxalad aan la kala fiicnayna soo gaaray marxaladda loo bislaanayay dadka Soomaaliyeed inay yihiin wada muwaadiniin u siman xuquuqda iyo waajibaadka war kala marroonini waa dawladdu way naga dhaxaysaa wax faana karna ma jiraan ma tashanaaba la soo gaaray حتى صومالي هذا وحكوس قطع بسالكاس ايش شفتها بسالكاس انه دولد بلد داوديال waxaan inta ku soo gabagabeynaa barnaamijkeeni inta la gabagabeyn doctor fursad u dambaysan ku siinayna waxa kale oo ku soo xiraysaa marka aad shacabka Soomaaliyeed iyo arrimaha hadda ka hadashay ku gabagabeynaysaa waxaan aniga ku gabagabeynayaa ku sheegayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan horta marka ugu horeysa isla xumaanina maxaa dawladnimadu barashay rabtaa dawladda burburta dawladda inta kula heleen ma aha waa dawlad ay rag soo sameeyeen isticmaala soo sameeyay
isticmaalka laga dhaxlay waxaan garaweyna sida loo maamulo dawladda loo wadaa garaweyna sida waxay lama tahay baabuur adigu aan soo samaysan oo adiga inta lagu dhiibado darawal oo lagu carbin baabuurka wad lagu yiri oo baabuurkii marka aad darbida la dhacday ee baabuurkana burbur adigu aad jabtay horta sidaas waa dawladda Soomaaliya laga burburtay Soomaaliya dawladnimadeeda ayadu marka hore ma samaysan ilaa hadeerna aqoonta ay dawladda u leedahay way yartahay waxaan naga qabaa cudur kala ma qabneen waa ogtihiin ruuxa Soomaaliga oo markuu tacliin aadadaha kama tacliintu markuu ganacsi aadadaha kama ganacsi xumo markuu bani'aadamka la mucaamalto ma yakun ka mucaamalo xumo mujtamaca Soomaaliyeed inta uu qabsaday dawlad la'aanta umad kale qabsan kartaa way yartahay marka waxaa la horta Soomaaliya isla xumaan laakiin oo ogaato waxa dhibku ku haya waa un hal arrin dawlad aysan aqoonin aysan u tababarnayn samaynteedii waa markaas waxaa lagu celcelinayaa wax la soo dhaafay guriga dhisaayo dardumaya waa oo marwaa dad dhisaayo dardumaya marka waxaa muhiim ah marka dawlad si dawladnimadeena u hagaagto oo guri dawlad Soomaaliyeed oo jiri karta aan u samayno waxaa laga maarmaan saddex qodob in la heshiisiyo waa in la heshiisiyaa qabiilkayna iyo qabyaaladayna iyo islaamkayna iyo dawladnimadayna waa inay heshiisiyiin waa la heshiisi karaa waxay ka bilaabataa islaamka inuu ugu koreeyo arrintaas oo ruuxa Soomaaliga maskaxdiisa waxaa ku jira islaam Soomaali islaamkaas waxaa rabaa inuu xuduudda celinaysa uu yahay wax kastoo ficila oo dadku baran u sameeyaan xuduuddaas marka wadaniyadu waa ku xigtaa inay ku xigtaa rabaa qabiilkuna waa inuu u yaraaday qabyaalada u yaraaday marka qabyaalada waa in lagu kontroolaa wadaninimo oo sharciga dawladdu ay leedahay ah iyo islaamka oo ficilka ku saysan mataqaana macruuf iyo munkarka ah laakiin waa inaan marna la ikirin qabiilka waa in la yaraysan islaamka waa in Soomaalinimadu ay ku istaqaano iyo muwaadinimo ku dhisan tahay waa in aysan noqon gabay iyo heesa kale iyo caadafo iyo marka la isku yimaado Soomaaliya tooso inaan isku akhrinay Soomaalinimo kama imaanayso sanka inaad dhuuban iyo timaheena jilacsan Soomaalinimo kuma imaanayso dadka Soomaaliyeed waxay rabaa dadku madax waxa isku haya sharci iyo qaanuun isku haya nidaam ka dhaxeeya rabaa dadku ay wada hoggaansamaan dhaqaale ay wada bixiyaan qaaraan ay wada bixiyaan laga rabaa dawladda qaaraan la'aan ma shaqeynayso waa in qaaraanka dawladda la bixiyo waa in sharciga dawladdu ay leedahay loo hoggaansamo waa in madaxda Soomaaliyeed leedahay waa in la doorto ruuxii shaqada qabso waa madaxdana waa inay fahamtaa inay shaqaalaha dadka tahay ruuxii shaqadiisa qabso waa shaqada laga ceeriyo si shaqaalaha loo ceeriyo kara qofka shaqadiisa ka soo bixi waaye horta fahmigaas haddii aan la yeelo waayo diinta islaamka waa inay noqotaa dhaqan iyo akhlaaq waa inay noqotaa dhaqanka akhlaaqda ilaahay ka rabaa adduunyada ka rabiya wixii hadan cibaadada laga aqbalin kara ilaahay baa garanaya laakiin anaga waxaan naqaanaa cibaadada haddii laga aqbalo dhaqankaaga fiicnaanay akhlaaqdaada fiicnaanaysa marka waxaa rabaa diinta islaamka dadka u sheega waxaa rabaa in loo sheego dadka waa laysa lil insaan illaa maa saca ولا تزور وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى waxaa rabaa in dadka loo sheego diintu inay akhlaaq tahay diintu inay tahay qurxaas tahay ilaahay ku tasbiix inuu qabo oo diinta lagu akaysiina salaadaha la tukadaa iyo waa la soomaa iyo waa la xajiyaa iyo mataqaana masaajidka la tagaa iyo gabadha xijaab ay qaadataa diinta saxiyaadkaas tababarka loogu talagalay waa inaan lagu akaysana nuxurka loo gudbaa diinnimada oo ah qalbiga aadamka dad ilaahay ku xirantaa ilaahay wuxuu kaa rabano insaan saalixa la iska rabo insaan saalixa la iska rabo oo muslixa isaguna xumaanta diida isaguna aan xumaan samaynayo حواي ساس أيام إلهي نجهروا إن خلقنا إسلام كسوة إسلام كجنة الوقت المرك كما إسلام كسبر إن شاء الله بنتا كبوقال كولا كريونا أو هذا أختي مسلمين أنت بدنا دخل كاسل إني بديهين حاسوك المرتك بكو حمسوا ختمة يعني آدي أيام إذا كنتم هذا الأيام أنت إذا جيسنا يسا وحنا رجعنا سيستم المطلبات هاي قدونه أنا وحنا هذا إن شاء الله على إن سؤال بدل لا يورثه أو سؤالها كجوال معلم wuxuu jecel yahay kullaba ardadu marka ay su'aal qabaan waxa way macnaheeda waxa wax way fahmeen laakiin hada su'aal lagu weydiin in lagu fahmay in lagu fahmin marka la garan kartid marka waxaan jeclaan lahaa in su'aal la weydiiyo jeclaan lahaa waxaan rajaynayaa in marka la kulanno waa maasantihiin Abdulwahid iyo kaga muxuu ahaa soo qaban qaabiyay muxuu ahaa muxaadaradana waa maasantihiin waxa way aniga waxaan ka shaqeeyaa hawsheeda ay tahay inaan diinta islaamka ah الدولة لماذا؟ يبشر يتقنك يسياسة وحصل كل جيل سيد له شيء سيرة هي كشف يا أو فكر حال له شيء سيرة ولا شيء سكرة عارف كده أنا مركز ولا كل بتونا وما سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا
دكتور maalmaha soo socdaan soo celinaa insha Allah waa loo baahan yahay dadka aqoon-yahanada dadka waxaan u ballanqaadaynaa doctorka hadduu diyaar yahay maalmaha soo socda ayaanu soo gelaynaa insha Allah su'aalihiin diyaarsada mawduuca asaga noo soo sheegi doona sida hadda aan u dhajinay baa u sii dhajinay maalmo ka hor marka waxaan leenahay miisaanka xasanaadka la saaro daawadayaal adinkuna sidoo kale sheer gareeya waxa halkan gaar haye waa golahaas loo dhan yahay labeentii ummadoo dhan siyaasiyiin ha ahaadeen culimadii ha ahaadeen dhalinyaradii ha ahaadeen hal abuuradii iyo hubaladii ha ahaadeen wax ka maqan ma leh marka indhihiina ku aragtaan marka doctorka dhawaan baa idiin noo soo noqonaya insha allahu intaasaan caawa ku xiraynaa jasaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu